boqor Burmadow ayaa waxa uu socdaal hawleed ku joogaa magaalada Bichi ee dalka China. boqorka ayaa qadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyay markii uu horeys balno sharaxo waxa uu qoseeyo socdaalkiisa. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وحويان سفر الإيران كنت جري ذاك تشينا هم بالله حجيرة وحويان أنتوا قلنا يجني وحويان بالدولة تشينا سيدي أنا قد أدعينا إلى أقرب مدان ذاك الشعب كالصومالي كفر كل باطل سن عبارة هيستان الصومالي ذاك قبل ذاك دكلفت ولا متى بس الله عاون لها سيدي الصومالي اللي أنا أقول سمين لهاين مالجين مدح بنان وأنا عيد كلام الصوماليين ما دام يقولون مثلا ماملك واي ودخل ضمن أمرين كاف كنا الجريد. warar ayaa sheegay boqor in madaxweynaha Somaliland uu laba habeen ku xiran yahay garoonka Bichi. Arrintaasi miyaad ka warhaysaa adig? runaatii waxa weeye hadar nasiib darra ka dhacday ninka sida odayaal la socota uu xanuunsanaya waa nin xanuunsanaya koox yar oo shabaab ah oo khaldan oo waxba garanin oo diblomaasiyadda ka aradan oo aan wax khibrad idaariga lahayn ayaa uu gacanta u galay iyo maato marka waxa weeye runtii ninkaa dhibaato badan baa loo geystay aanu xamili karin daahaan iyo maskaxaan ba aanu qaadi karin baa loo geystay waa rugeyd mar lagu tuuro durir dhabe iyo mar Ethiopia lagu silciyey isagoo aan fiisa haysan iyo isagoo haddana aan sharciyad loo dhammayn oo wax fiisa iyo waxba sidan oo caasimaad dowladeed sidan in lagu tuuro madaarka marka runaatii markaan ogaaday anigu inuu halkaa ku xaniman yahay oo aanu waxa sharciyada uu dalka ku galo haysan oo dowladduna aanay casumin halsoo waxba watiina oo ah kambani yar oo China iyo dowladda Ethiopia oo dhidhow rasmiga la heshiiska rasmiga la galay oo arrimaha dekada berbere iyo wadada tareenka iyo waxba dowladda Ethiopia ayuu heshiiska la galay maalgelinta waxa ku sameeyay shirkadda Brafada marka dadka odayga waxa runaatii si khaldan ayaa meesha loo geliyay waxaan loo gurmanay runtii runaatii iyadoo safaarada iyo ciidamada aan u joogin sidii go'aam loo dalkiisa ugu soo noqon lahaa lagu soo celin lahaa arrinkaasna waxaan filayaa saacadaha soo socda inuu fuli doono oo dalkiisa loogu soo celin doono waana arrin nasiib darro ku dhacday weeyaan waana kale oo diblomaasiyadda Soomaaliland oo dhan ku habsatay miyay aqbaleen dowladda China may aqbashay in ay go'aam u jarto madaxweyne Siilaanyo si uu dalkiisa ugu laabto حقيقة runaatii anigu de magaaladan dhex deganayo waxaan deganaa baalaska dowladda ayaan deganahay laakiin madaarkana dib uguma noqon laakiin marka aan helay qolihii brotocolkii aan la xidhiidhnay markii hore waaba la garan waayay laakiin markii dambe waxa la ogaaday inuu hudheel yar oo madaarka dhexdiisa ku jiro oo madaarka dhexdiisa markaasi in loo dedejiyo ciidankii ayaan codsanay waxaana filayaa inay dhici doonto taasi baan filayaa warar kala duwan ayaa ka soo baxay heshiiska dowladda Ethiopia la galay waxa la leeyahay 50 sanadood ayaa loo saxiixay heshiis ku saabsan inay Somaliland dhinaca ammaanka iyo dhaqaalaha ay maamusho Ethiopia arrintaasi maxaad kala socotaa marka hore anigu dowladda Ethiopia aad iyo aad baan u ixtiraamaa waa dowladda aan walaalahay waa dowladda aan jaarnahay waa dowlad deegaan iyo dadayna ka dhaxeeyo aniga dadkaan odayga intiisa badan dekay kaliya ka shanaad